السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعن وناكسن داوديال qodobada aad barnaamijka ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda Suudaan oo sheegtay in Itoobiya ku dhawaaqday dagaal gardarro ah oo ka dhan ah wadanka Suudaan sheegtana inay caay iyo gaf u geysatay wadanka Suudaan warbixintii Suudaan oo dhameystiran ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku daawan doontaan hogaamiyihii kooxda TPLF oo dawladda Itoobiya ugu baaqay wada hadal degdeg ah iyo gargaarka bini'aadanimo in loo furo gobolka Tigreega shuruudo adagna ku xiray wada hadalada oo la gali doono wadanka Itoobiya warbixin muhiim ah ayaan idin kaga haynaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku daawan doontaan halkan aad kaga bogan doontaan muuqaalo ay soo bandhigeen kooxda TPLF ayna ku sheegeen inay military aad u tiro badan oo ka tirsan militariga wadanka Itoobiya soo qabteen soona bandhigeen muuqaaladii ayaan halkan idinkugu baahi doonaa magaalo dhan oo lagu soo bandhigay ciidamadii militariga wadanka Itoobiya la duleysanayo iyo shacabkii deegaankaas oo aad ugu farxay soo qabashada ciidamadan tirada badan ee militariga wadanka Itoobiya laga soo qabtay qodobadaas iyo qodobo kale oo raaca ayaad barnaamijka ku daawan doontaan ku soo dhawaada barnaamijka hadda nagu cusubtaana fadlan subscribe saaro like taabasina share garay si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya xogaha aan baahino haddii aad horey noola joogto waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga mahadsan inuu ku horeyno hogaamiyaha baxsadka ah ee kooxda TPLF ayaa soo saaray baaq nabadeed oo ku aadan xabad joog laga gaarayo dagaalka ka socda gobolka Tigreega TPLF ayaa 8 shuruudood ku xidhay inay xal laga gaaro dagaalka gobolka Tigreega ka socda koow in ciidamada Eritrea ay isaga baxaan gobolka Tigreega lana xaqiijiyo waliba inay isaga baxeen ciidamada Eritrea gobolka Tigreega in ciidamada gaarka ah ee deegaanka Amxaaradu ay ka baxaan deegaanka Tigreega iyo waliba koonfurta Tigreega iyo galbeedka Tigreega iyo in la burburiyo maamulka ku meel gaarka ah ee loo dhisay deegaanka Tigreega lana soo celiyo xukuumadii sharciga ahayd iyo in xasuuqii loo geystay shacabka Tigreega guddi heer caalami ah loo saaro lana baaro iyo in shacabka Tigreega ee qaxay gurmad degdeg ah loo fidiyo warbaahintana loo fasaxo inay soo galaan gobolka Tigreega iyo in bilaa sharuud loo sii daayo maxaabiista laga qabtay intii uu dagaalku socday kooxda TPLF iyo in la dhiso hantidii shacabka ee lagu burburiyay intii uu dagaalku socday wada hadalladu waa inay qabtaan urur heer caalami ah kana madax bannaan dawladda Itoobiya shuruudahaas hadday ogolaato dawladda Itoobiya waxay TPLF diyaar u tahay inay wada hadal ka gasho dagaalka dawladda Itoobiya kala dhaxeeya bayaankan ay soo saartay kooxda TPLF ayaa lagu yiri sidaasi marka kooxda TPLF waxa la leeyahay markii deegaano tiro badan sida maalmahanba aan idin la wadaagaynay ay militariga wadanka Itoobiya ay ka soo qabsadeen oo maanta hadii warbaahintii caalamka loo fasaxo kooxda TPLF oo deegaano tiro badan militariga wadanka Itoobiya ka haysata deegaano aad u tiro badan oo ay qabsadeen iyo goobihii dagaalku ka dhacay iyo burburkii gobolka soo gaaray iyo wixii oo dhan in la arko ayay kaga daleeyihiin ayaa la yiri baaqan sidoo kale baaqan waxay kaga la jeedaan ayaa la goob ay ka gorgortami karaan oo ciidamada militariga wadanka Itoobiya ay kula gorgortami karaan ayay yimaadeen waayo militariga wadanka Itoobiya culaysyo badan ayaa magaaladii maqalla waxa la sheegayaa inay go'doon ku jirto korontadii waxa la sheegayaa inay ka jareen kooxda TPLF meelaha qaar waxa la suraba astaamihii TPLF shacabkii waxa ay leeyihiin dhiigeeni ayaa wax waaye dhiigeeni ayaa soo socda guryaha inaan ka soo bixin ayaan ugu la digay inaan taxadar badan muujino waayo xilli waliba waxa ay sheegayaan TPLF inay soo weerari karaan magaalada maqalla ee caasimadda gobolka Tigreega marka TPLF goob ay ka wada hadli karto oo caalamkana hadii loo fasaxo ay awoodda TPLF ay ku soo arki karaan oo laba maamul oo waaweyn oo iska barbar dagaalamay meeshaasna lagu dhaxdhaxaadi karo ay u aragtaa sidoo kale TPLF dadka xasuuqyada meesha ka dhacay iyo dhibaatooyinka gobolka Tigreega ka dhacay oo aan ahayn kuwa aan sahlanayn in meeshaas ay ka soo baxdo dawladda Itoobiyana dambiye dagaal dusha loo saar ay rabtaa yele midda saddexaad waxa ay rabtaa in ciidamada Eritrea in gobolka Tigreega ku sugnaayeen in la xaqiijiyo taas hadii ay xaqiiqo noqotona Abiy Ahmed waxa uu wajihi doonaa dhaleeceyn badan oo ugu yimaado culaysyo tiro badan oo caalamka ugu yimaado caalamka hadda siyaas Afwerki iyo Abiy Ahmed labaduba waa ay ku dhaleeceynayaan ciidamada Eritreanka ee gobolka Tigreega dhibaatooyinka ka wada siyaas Afwerki iyo Abiy Ahmed labaduba waa ay iska fogeeyeen oo waa ay inkirayaan waxa ay leeyihiin wax ciidan Eritrean ee ku sugan gobolka Tigreega ma jirto sidee kula tahay baaqan oo ku baaqay hogaamiyaha kooxda TPLF qaani uma akamid ay dawladda Itoobiya ka soo bixi karto waayo maamulkii dawladda Itoobiya ay meesha u samaysay waa in la burburiyaa maamulkii horena waa in la soo celiyo maamulkii hore la soo celinayo waa kooxda TPLF ee meesha awoodda ku haysatay waa in la soo celiyo kala dambeyntii maamulkii gobolka Tigreega ka jiray waa in la soo celiyo ayay leeyihiin oo maamulkii ay TPLF magacawday in la soo celiyo ayaaba shuruuda kamida
marka shuruudaha kooxda TPLF ay soo dhigeen oo aad u culus dawladda Itoobiya wali wax jawaaba kama aysan bixin dhinaca dawladda Itoobiya ayaan kursiga doonaa sidoo kale kooxda TPLF ayaa soo bandhigtay muuqaallo muujinaya ciidamo ka tirsan militariga wadanka Itoobiya oo ay sheegeen inay ku qabteen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega maalmihii ugu dambeeyay TPLF ayaa sheegtay inay qabteen boqolaal askari oo ka tirsan militariga Itoobiya sidoo kale waxa ay sheegeen inay dileen tiro intaasi ka badan ayagoona sheegay inay meelo horle ay kala wareegeen inkastoo ay carrabaabin meelaha ay qabsadeen dhanka kale militariga wadanka Itoobiya oo ka hadlay xaaladda gobolka Tigreega ayaa sheegay in TPLF awood leh oo dagaal la galaysa militariga wadanka Itoobiya aysan ka jirin gobolka Tigreega dagaalada u dhaxeeya TPLF iyo dawladda Itoobiya ayaa toddobaadkan isu soo tarayay waxaana la sheegayaa in magaalooyin badan oo ka tirsan deegaankaasi ay dib u qabsadeen xoogaga TPLF laakiin xaqiijin dhab ah ilaa iyo haddeertaan lama hayo oo dhinaca dawladda Itoobiya waxa ay iska fogeynaysaa koox TPLF oo awood badan inay meesha qabsatay kooxda TPLF-na waxa ay leedahay magaalooyin waaweyn ayaan qabsanay askartii tirada badneed oo militariga wadanka Itoobiya aan ka qabanana qayb kamid ah waaba kuwana bal eeg askartan sida ay u dhaqaaqayaan fiiri shacabku sida ay ugu maadeysanayaan fiiri shacabka deegaankan ku nool askarta ay ku maadeysanayaan caruur aad u tiro badan ayaa isku soo baxday haween ayaa isku soo baxay odayaal ayaa isku soo baxay maleeshiyaadkii kooxda TPLF ayaa geesaha ka socda ciidamadii militariga dhaxda ayay ku socdaan kabadacis ayay wata xitaa kabihii militariga loogu talagalay maba ay wataanba dadkaani malaha dad ayagoo hurdo ah ayaaba la iska soo kaxaysto weerar inta lagu qaaday ayaa meesha laga soo jafa ayaadba isleedahay qaabka u yeelaan markaad fiirido ciidamadii militariga wadanka Itoobiya oo ayaga dhanba Soomaalidu dacaskan ay u taqaano dacashiinayska ayayba wataanba bal fiiri bal eeg sawiraantan bal eeg sida ay hoos u fiirinayaan bal eeg sida loo bahdilaya bal eeg militariga wadanka Itoobiya ciidamada Itoobiya waxa ay maraysaa dawladda Itoobiya meel xun ay xaalkeedu maraya waayo waxa la marayaa militariga wadanka Itoobiya sida loo bahdilayo in isla ciidamadii militariga qayb kamid oo TPLF ciidamadii militariga ay kamid ahaa jireen waayo militariga dhammaan wadanka Itoobiya waayaba kooxda TPLF in militariga qayb kamid ah oo ku faana maantay militariga kale qayb kamid ah inuu sidaan u galo u bahdilo Itoobiya xaalkeedu meel xun ay u socdaa dadka arrimahan falanqeeyana waxa ay leeyihiin si walba oo dawladda Itoobiya iyo kooxda TPLF oo caalamku cadaadis u saaro la isugu soo jiijiido mar dambe ma dhici doonto ayaa la yiri in deegaanada Tigreega ay dawladda Itoobiya ka taliso waa hadii ay kooxda TPLF meeshaas awood ku qabsato iyo hadii dhaxdhaxaadiyaalba ay soo galaanba kooxda TPLF marnaba ma ogolaa doonto dadka deegaanka Tigreega ka jooga in mar dambe ay ka sii mid ahaadaan wadanka Itoobiya waayo dhibaatooyinka meeshaan ka dhacay dhibaatooyin yar maahan dadkana naxariis looma sameeynin marka TPLF cuqubooyin hore ay gashay mindha ayaa laga jarayaa oo dhibaatooyinkii ay Soomaaliya iyo wadamada kale oo geeska Afrika ay ka geysteen ayaa laga jarayaa laakiin shacab badan oo masaakiin ah waxba galabsan oo abriya ayaa meeshaasi ku baabaaya iyo ciidamo tiro badan oo kuwa TPLF ka tirsan iyo militariga wadanka Itoobiya dawladda Itoobiya dhagartii iyo dhibaatooyinkii ay Soomaali u madeegtay ayada ayaa Ilaahay ku celiyay maamul goboleedyadan iyo dhibaatooyinka iyo marxaladda hadda Soomaaliya ku jirto waxa ka dambeeyo kana shaqeeyay kooxda TPLF ee xukunka wadanka Itoobiya ay jirtay si guud dawladda Itoobiya ayaa ka shaqeeyay dawladaha kala duwanay ee Itoobiya soo maray mid waliba waxa ay ka shaqeynaysay hagardaamada Soomaaliya iyo si aan loo helin Soomaaliya cagaheeda isku taagtay dawladda hadda Abiy Ahmed oo hogaamiyana kuwaas ayay la mid tahay oo hagardaamooyinka ayay qayb ka tahay oo dhibaatooyinka Soomaaliya maanta ka jira qayb ayay ka tahay dhanka kale dawladda Suudaan waxaan la aqbali karin ku tilmaamtay bayaan dhawaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda wadanka Itoobiya Suudaan waxa ay ku eedeysay Itoobiya inay sii kordhinayso xiisadda faraha ka sii baxaysa ee u dhaxaysa labada wadan ee dariska ah ee ku muransan gobolka dhaca xuduudda dhanka kale Khartoum ayaa ku hanjabtay inay dalkeeda ka saari doonto ciidamada Itoobiyaanka ah ee nabad ilaalinta u jooga sanadkii 2011 ayaa in ka badan 5,000 oo askari oo Itoobiyaan nabad ilaalin ah waxa la geeyay gobolka Abay ee ay Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ay isku haystaan ugu dambeyn dawladda Suudaan ayaa ka digtay inay Itoobiya qatar weyn ay ku tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka geeska Afrika dhaco dhanba Suudaan Itoobiya waxa ay ku dhawaaqaysaa dagaal gardarro ah waxa ayna nagu sheegtay cay aan la cafi karin ayadoo ay taagan tahay xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa labada dal ee Suudaan iyo Itoobiya ee suuhdinta biyo xireenka wasaaradda arrimaha dibadda wadanka Suudaan waxay carabka ku adkaysay maanta oo sabti ah inay eedeynta Itoobiya ee Khartoum gacan saddexaad
in ay tahay cay aan la cafin karin waxay sidoo kale bayaanka ay soo saartay ku xaqiijiyeen in mas'uuliyiinta Itoobiya ay ku kacayaan xadgudubyo la xiriira xadka labada dal waxayse intaas ku dareen inay biday gacan saddexaad oo ay ku weerareen dhulka Suudaan waxayna Suudaan gacantaas saddexaad ula jeedaa dalka Eritrea laakiin dawladda Suudaan ma aysan carabaabin intaasi waxa sii dheer waxay tixgelinaysaa in Itoobiya ay u adeegsanayso siyaasadda arrimaha dibadda mid ka dhan ah danta dadkeena iyo mas'uuliyad darro ayadoona tilmaamaysa xuduudda Suudaan iyo Itoobiya aan weligeed lagu murmin ilaa si kastaba ha noqotee isla waqtigaas waxa ay xaqiijinaysaa hoggaansiminta Suudaan heshiisyada iyo sharciyada iyo ilaalinta nabadda iyo amniga ayadoona rajeynaysa in Itoobiya ay ku dhaqmi doonto in sharciga waafaqsan iyo daris wanaaga tani waxa ay timid kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay ku eedeysay ciidamada Suudaan inay isku dayayaan inay labada shacab ku riixaan dagaal aan qiil loo hayn oo qalad dhimasho ah wax u dhimaya nabadda iyo xasilloonida oo raadinaya dana shisheeye dawladda Suudaan waxa ay sidoo kale carabka ku adkaysay in aysan ka tanaasuli doonin xuduudooda dhuleed ayadoona leh Suudaan waxa ay cadeynaysaa madax banaanideeda dhuleed ee ay Itoobiya la wadaagto oo ay sheegtay in ay hoos timaado waxa ayna ku nuuxnuuxsatay in aysan ka tanaasuli doonin hal taako oo dhul ah oo kamid ah dhulka Suudaan ama midka ka maqan ama midka ay hadda hayaanba